الله وين ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقة لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد ولا ليال سيدة آد لسعتين الله سبحانه وتعالى وحاوليه مقعيو ونوناكسن والله يقانو أسماء الله الحسنى مقعيدا ونوناكسن بالليه وسقاشن يسقال مقع ومقعي أنا للو ذاقين بكلي ليه keligiina mudan yahay waa magacyada alla lagu baryo lagu tuugo ajir iyo xasanaad looga helo marka dambana aakhirana laga rajeeyo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala janno ku geynayo magacyada wanaagsan ee Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu leeyahay iyo sifooyinkiisaba waxay ka mid yihiin waxyaabaha asaaska u ah qofka muslimka ah inuu qalbigiisa u diyaariyo maskaxdiisa u diyaariyo si uu Ilaahay si toos ah ugu xirmo haddaad doonayso marka inaad magac barato waxaad u baahan tahay magaca ugu fiican waa magaca Eebbe subhanahu wa ta'ala waxaan halkan ku qaban doonaa casharo taxana ah oo aan uga hadli doono magacyada Eebbe weyne oo aan samayn doono sharaxaadyo kala duwan laakiin inta aanan guda gelin inaanu ka hadalno magacyada Eebbe oo aan tafsiir iyo sharaxaad iyo macnayn u sameeyno waxaan ka sii hormarin doonaa dhowr cashar oo aan u bixinayno casharo horodhaca casharka koowaad ee aan maanta soo jeedinayno wuxuu ku saabsan yahay muxuu yahay magac maxayse tahay muhiimaddu magaca uu leeyahay qofka bini'aadamka ee noolaha ah waxa aad loo wada og yahay in uurka bini'aadamka waxa ku jira si uu u soo saaro inuu u baahan yahay hadalkaas sida uu u soo baxana wuxuu u baahan yahay erayadaasuna ay isku bedelaan oraah isla socota oo faa'iido la maqlo lana weeleen karo ay ka dhalan karto si aad ugu hadasho erayo isu bedelaya oraah waxaad u baahan tahay waxa taqaano oo aad ku hadasho waxa taqaano si aad u heshana waxaad u baahan tahay inaad hesho cid ku barta erayadii aad u bedeli lahayd oraah lagu hadlo taa marka waxay cabiraysaa muddooyinka iyo isdabayaalka maskaxda bini'aadamka siday u shaqeyso ilaa ay u soo baxdo kelmado afka ka soo baxaya oo lagu hadlayo waxay culimadu luqaddu sheegaan magacu inuu yahay shayga ama waxa lagu garto walxaha qiimaha ay leeyihiin haday faa'iido tahay haddii faa'iido darro ay tahay haddii ay khasaaro tahay iyo haddii ay tahay wax nacfi leh sidaa darteed shayga haddaad rabto inaad garato waxaad ku garan kartaa marka hore kaydka maskaxdaada siday u aruurisay shayga magaciisa haddii kale aadan magaca aqoonin waxaa kaa dhumaysa inaydan maskaxdaada ku jirin waxa aa aragtay waxa ay yihiin tusaale ahaan haddii aad seef aragto ood magaca seefta taqaano maskaxdaada waxaa ku soo dhacaya inay tahay wax dadka dhiba dadka dhaawaca ama dadkaba dili kara waxaa taa ka soo horjeeda haddaad aragto biyo waxaad garanaysaa wax faa'iido leh inay yihiin wax la caba inay yihiin markaad biyaha sii kala taqaano magacyadoodana waxaad garanaysaa webi miya bad miya ceel miya xareed miya barkad miya ka cabaysaa magacyadaas waxay saameyn ku leeyihiin fahamka aad ka haysato waxa aragtay haddii laakiin aadan garanaynin seeftu waxay kuu noqonaysaa wax tuman oo meel yaala oo waxay qabanaysa aan la garanayn haddii aad biyaha aragtana inay sun yihiin inay daawo yihiin iyo inay jiran yihiin ma kala garan kartid saa darteed shayga magaciisu wuxuu saameyn ku yeeshaa maskaxdaadu sida marka hore ay u shaqaynayso waa halka carruurtu ay awood u leeyihiin gacanta midigna inay qalin ku qabtaan gacanta bidixna dhimbil dab ah ay ku taabtaan sababtuna waxay tahay dadka waayeelka ag joogana ay oranayaan ilmahaanu ma lahan garaad iyo garasho uu ku kala sooco tallaabaduu qaadayo iyo waxa uu taabanayo laakiin haddii uu garanayo waxa inay dhimbil tahay uma uu dhawaadeen haddii ay tahay qalinna
wixii uu ku qabsanayo maskaxdiisu mar hore diyaar u tahay. Eebbaweyne subxaanahu wa tacaala waxa ugu wanaagsan ee uu abuuray waa bini aadan, wuuna karaameeyey oo sharaf iyo karaamo ka duwan uunka intiisa kale ayuu eebbe siiyey. sidaa darteed ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay laqad khalaqna al-insaana fii axsani taqwiim, bini aadamka waxaan u abuurnay sida ugu qurxan ee wax loo toosiyo. axsani taqwiim, sida ugu sii qurxan oo wax loo toosiyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala u abuuray. toosintaasu waxay ka timid in ilaahay qofka caloosha hooyadii geliyey. caloosha hooyadii marka uu ka soo baxayana wuxuu ka soo baxayaa asaga oo aanan waxba garanaynin. waa meesha Allah subxaanahu wa tacaala uu ka leeyahay wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an. noolihii bini aadamka ahaa ee caloosha hooyadii ilaahay ku abuuray markii uu ka soo saarayay wuxuu garanayay ma jirin. kaana laa yaclamu shay-an wallahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-an. markuu halkaa jooguusan waxba garanaynin, ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey agabkii uu ku heli lahaa ogaalka ama cilmiga uu ku heli lahaa oo kale ah maqal iyo arag iyo qalbigii waxaas ay ku aruuri lahaayeen oo ay ku samaysmi lahaayeen. waa meesha ilaahay ka dhahay wajacala lakum as-samca wal-absaara wal-afidata lacalakum tashkuruun. noolihii bini aadamka ahaa markii ilaahay subxaanahu wa tacaala sida ugu quruxda badan u toosiyey, hooyadii caloosheedana uu ka soo saaray, ee uu siiyey agabkii uu wax ku baran karay oo ahaa maqalka iyo aragga ay ka mid ahaayeen, wuxuu u baahday inuu awood u helo inuu hadlo. wuxuu u baahday inuu awood u helo inuu wax kala sooco. sidaa darteed ilaahay wuxuu siiyey wax kale oo uu u baahan yahay si uu awood ugu yeesho inuu hadlo ama inuu wax kala sooco. waxaasu maxay noqdeen? alam najcal lahu caynayn wa lisaanan wa shafatayn wa hadaynaahu annajdayn. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u sameeyey oo u abuuray indhihii uu wax ku arki lahaa, carabkii uu ku hadli lahaa, iyo bishamihii carabkaas toosin lahaa oo halkii carabka hadalkiisa uu marsiin lahaa waddadiisii ay u tahay. markuu helay marka indhihii, carabkiina helay, bishimihiina helay, wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala awood u siiyey haddana inuu hiddaha uu qaadanayo iyo tubta uu marayo, ma waddo fiican buu qaadayaa, ma waddo wanaagsan buu qaadayaa, adigaa go-aankeeda iska leh. sida aad u leedahay haddaad adigoo waddo maraya habowdo, indhihii baa ilaahay ku siiyey, waad aragtay inaad lunsan tahay. carabkiina ilaahay waa ku siiyey, bishimihiina waa ku siiyey. qofka kuugu dhowaad odhanaysaa war jidkan aan hayo ma jidkii saxda ahaabaa. haddaadan laakiin hadli karin, sidee baad ugu sheegaysaa qofka aad rabto inuu ku caawiyo oo uu ku geeyo meeshii aad aadi lahayd? saa darteed ilaahay subxaanahu wa tacaala marxaladaasna qofka bini aadamka waa keeno awood uu helo inuu kala soocdo jidka uu marayo, ma kii khayrka mise waa kii sharta. markuu ilaahay intaa qofkii bini aadamka isugu toosiyey ee uu isugu aadiyey abuurkiisii kiisi ugu toosnaa loo sameeyey, agabkii uu wax ku maqli lahaana la siiyey, wuxuu u baahday inuu hadlo, wuxuu u baahday in waxa qalbigiisa ku jira uu soo saari karo oo uu bannaanka u soo bixin karo. si uu bannaanka ugu soo bixiyo marka, maadaama uu haysto agabkii ama adawaadkii uu ku samayn lahaa intaa, wuxuu u baahan yahay wax asaga ka baxsan oo u yimaada oo gala oo aqoon u noqda. aqoontaas marka ay keento la yidhaahdo waxaan magacaas baa la dhahaa, waxaan waxaas baa la dhahaa, walxahan markaa aragto sidaas bay yihiin. kabacdina wuxuu ku dul baranayaa si otomaatig oo isugu xiran waxaas waxay yihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaalaana wuu isku xijiyey abuurka bini aadamka iyo inuu siiyo aqoontii uu wax u kala sooci lahaa. ilaahay wuu isku xijiyey. qur-aankiisa ilaahay wuxuu ku yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim arraxmaan callama alqur'aan, waxaa ku xiga khalaqa alinsaan callamahu albayaan. ilaahay markuu abuuray noolihii oo bini aadamkii uu sameeyey, wuxuu haddana baray garaadkii wax ku kala sooci lahaa. bayaanku waa waxa wax ku kala saarayso, wax ku kala garanayso, adiguna aad wax ku gudbin karto oo garashadii iyo garaadkii oo wada socda ah. sidaa darteed isla aayadda markii ilaahay uu sheegay inuu bini aadamkii abuuray, waxyaabihii wax ku caddaysan lahaa awoodeediina uu siiyo, cilmigeedii uu siiyey, waxaa la baray ugu horreeyay waxay ahaayeen magacyo. waxaa la baray qorax, waxaa la baray dayax, waxaa la baray xidigo, waxaa la baray geed, waxaa la baray cir,
waxaa la baray dhul markaas haddana waxaa loogu daray waxaan magacyada loo sheegay maxay yihiin maxayse qabtaan waa kan ilaahay oranayo khalaqa al-insaan allamahu al-bayaan ash-shamsu wal-qamaru bihusban wan-najmu wash-shajaru yasjudan was-samaa'a rafa'aha wa wada'a al-miizan ila ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ka gaarayo wal-arda wada'aha lil-anam sida darteed bini aadamka maskaxdiisu siday u samaysan tahay markuu cirka fiiriyo waxa u soo baxaya wax la yiraahdo samadaas maxay qabataa miisaanka ayay toosisaa markuu cirka fiiriyo wuxuu arkayaa qorax iyo xidigo waxa u soo baxaya waxay taraan xisaab bay taraan waxa dhulka markuu fiiriyo markuu hoostiisa fiiriyo waxa u soo baxaya magac la yiraahdo dhul kadib wuxuu garanayaa wax la fidiyay oo bini aadamka dartiis loo fidiyay sidoo ugu intifaaci lahaa sida darteed magacu wuxuu ku daaweynayaa oo uu ku sahlayaa inaad garan karto magacaanu muxuu u samaysan yahay markaas aad garan kartaa sidaad ugu intifaaci lahayd naftaada iyo dadka kale aad wax ugu tari lahayd waana madda ilaahay subhanahu wa ta'ala uu isugu xijiyay al-khalqu wal-bayan abuurki iyo wixii aad wax u kala cadaysan lahayd oo ka bilaabanayso magacyadu iyo waxa ay taraan sida darteed shayga aadan awoodin inuu hadlo oo waxa ku jira soo saaro wuxuu luminayaa qiimaha uu asaga leeyahay wax aan jirin wax aan hadli karin macnaheedu waxa waaye waa wax aan jirin hadiiba wuxuu hadli karaan waa noole qiimihiisu intee leeg yahay faa'iidadiisu intee leeg tahay waa mowduuc kale waa halka nabiyullaahi ibraahim qisadii dheerayd markii uu ku soo gabagabeeyay waxaan yaa sameeyay markii la yiri wuxuu yiri bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun kan ugu weyn baa falkan ku kacaye bal warsada haduu hadlayo macnaheedu waxa weeye war waxaan hadlaynin maxaad u caabudaysaan war waxaan adigiiba ku jawaabaynin oonan awoodin inuu ku dhaho waxa samee ama uu ku dhaho waxa ha sameeynin sideebaad adiga diintaadii iyo cibaadadaadii aad ugu dhiibaysaa wuxuu markaa nabi ibraahim alayhi salatu wasalaam uu tusayaa maadaama uu yahay noole aan hadlaynin waa noole aan wax taraynin maadaama uu yahay noole aan hadlaynin waa noole aan waxba faa'iideynin sida darteed marka kale ee waxa laga sabro aysan rajaba lahayn waa marka uu waayo saddexda dareen ee bini aadamka asaaska u ah oo ah maqal iyo hadal iyo indhe waa marka uu ilaahay subhanahu wa ta'ala oranayo summun bukmun umyun fahum la yarji'un saddexdaas dareen ee kala ah araga maqalka iyo indhihii aad wixii oo dhan ku wada soocaysa hadii laga waayo wax rajo oo xataa mustaqbalka laga qabi karo ma jiraan waxaan u imanaynaa bini aadamku sideebuu ku helaa aqoonta sideebuu ku helaa cilmiga sideebuu ku soo gaaraa waxaad garanaysaa ilaahay subhanahu wa ta'ala in bini aadamka uu u baahan yahay inuu ku abuuray inuu u baahan yahay inuu hadlo inuu u baahan yahay waxa ku jira inay ka soo baxaan wataan ka soo sheekeynay sida aad u hadashana waxaad u baahan tahay waxaad ku hadlayso inaad garanayso magacooda inaad soo baratay waxa magacooda maskaxdaada keedkeedana ay soo saarayso shaygan magaciisa waxa ugu qiimaha badan ee ilaahay soo dejiyay waa quraankuna waa hadalkiina waa hadalkii ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nala hadlayo oo uunkiisa la hadlayo oo noloshiisa iyo sidii uu noloshiisa u maamulan lahaa uu sharxayo sida darteed bin aadamka aqoontiisu waxay ka imaataa sababa fara badan laakiin waxaan ka soo bilaabaynaa asalkeedii meesha ka timid asalkeedu waa xagee bin aadamku wuxuu ka yimid nabiyullaahi aadam oo uu ku abtirsadaa oo ah noolihii bin aadam ah ee qof ah ee ilaahay abuuray waa nabi aadam marka aqoonta xagee buu ka keenay nabi aadam wuxuu aqoonta ka keenay ilaahay subhanahu wa ta'ala baa baray oo wuxuu baray wax allaala iyo wixii aqoon uu uga baahnaa ama agabkii uu baahnaa inuu aqoon ku helo waa hibo ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nabigiisa alayhi salaam nabi aadam uu siiyey sidaasna iyadoo dhaxal ah oo luqado kala duwan ah oo afaf kala duwan ah ay ummadaha ku soo gaartay ilaa ay maanta anaga aan joogno ay noogu imaatay waxa ilaahay uu nabi aadam baray waxa la yiraahdaa waa magacyo
laakiin ilaahay marka uu sifeynayo wuxuu ku tilmaamay inay tahay cilmi oo wuxuu yidhi wacallama aadama alasmaa'a kullaha meeshaan ilaahay wuxuu ku qirayaa inaad walxaha magacyadooda taqaano inay tahay aqoon iyo cilmi waana midda ilaahay yidhi wacallama aadama alasmaa'a kullaha malaa'igtii la geliyey tartanka oo la yidhi war nebi aadan intaasuu garanayaa bal adinku waxaa taqaanaan sheega ayaguna waxay qireen cilmi ka maqan oo aan la barin inuu jiro oo waxay yidhaahdeen subxaanaka laa cilma lana ilaa maa callamtana oo ay ula jeedaan cilmigan ilaahayow namaadan barin saa darteed ma naqaano marka cilmu musamayaati alashyaa shayga magacyadooda iyo waxa ay magacyada ka turjumayaan ayagu malaa'igtu laftigooda way qireen inay tahay cilmi oo uu nebi aadan uga aqoon badan yahay cilmigu marka wuxuu keenayaa inaad awood u yeelato garasho inaad awood u yeelato inaad kala saarto walxaha sida ay isku kala yihiin iyo sida ay nacfi u leeyihiin cilmigaasu waa kan ilaahay bini aadamka ku karaameeyey ee uu uga soocay xayawaanka oo uga soocay waxyaabo fara badan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu abuuray sidaa darteed luqaddu waxay asal u noqotay inay tahay shayga ugu weyn ee qofka bini aadamka ama noolaha bini aadamka uu haysto waa meesha culimmada qaar ay ka dhahaan ilaahay subxaanahu watacaala koonka wuxuu keenay ilaa 5,000 oo luqadood halkan hadda ugama sheekayn doono luqadaha adduunka la keenay waa imisa yaa waaye cidda ugu horreyso hadasho inta aan la hadlin ka hor maxaa la isticmaali jiray ma tilmaam baa luqad ahayd sidee loo hadli jiray kamana hadli doono qofka bini aadamka siduu ilaahay u abuuray ee bishimihiisa ilkihiisa wejigiisa iyo la shaqaynta maskaxda sida isugu xiran yihiin halkan hadda ugama hadlayno waxaan ku soo koobaynaa kaliya hadalka iyo magacyadu waa awood ilaahay subxaanahu watacaala uu bini aadamka siiyey qofkii u horreeyey oo la baranaya inuu yahay abuuna nabiyullaahi aadam calayhi salaam saa darteed luqaddu waa hadal waana tilmaan markay halkaa joogto culammada luqadu waxay kaloo qirsan yihiin luqaddu inay tahay shayga qofka habfakarkiisa iyo dhiraandhirinta maskaxdiisu samayso marka uu rabo inuu wax sheego inay ka imaanayso asalkeeda luqadda marka ayadana waa taan dhowr jeer sharaxnay oo aan nidhi waxay ka bilaabataa shayga magaciisa sidaa darteed qofka dhagaxa caabudaya wuxuu u yaqaanaa dhagaxaas ilaah wuxuuna rabaa inuu dhagaxaas caabudo laakiin dadka muslimiinta ah waxay u yaqaanaan dhagax marka maadaama uu dhagax yahay magacaas aad taqaano maskaxdaadu waxay rajiis garaynaysaa inaan la caabudi karin inuusan kula hadli karin inuusan wax kuu tari karin laakiin qofka markii uu dhashayba loo baray sawir meel yaala oo gacan ku samaysa la yiri waa ilaahaagii maskaxdiisu ma qoreyso waxaanu waa dhagax waxna kuma sameynayo halka waxa ka garanaysaa marka magaca shayga sida ay qofka noloshiisa inta ka dambaysa oo dhan ay saameyn joogta ay ugu yeelanayso sida darteed xataa bulshooyinka markii la darsay waxa soo baxday habkay u hadlaan iyo habkay u sheekeeyaan inay calaaqa la leedahay habkay u fakaraan inay calaaqa la leedahay luqadda ay ku hadlaan jaamacad Mareykanka waxay baaritaan ku samaysay luqadaha adduunka sida ay saameyn ugu leeyihiin qofka bini aadamka fakarkiisa waxa u soo baxday qofka luqadda Englishka ku hadla marar fara badan inuu ka sheekeeyo markuu qisada sheegayo inuu xoogga saaro sababta qisadan keentay halka dadka luqadda Japanese-ka ku hadlaya ay qisada kaliya wariyaan waxa dhacay kaliya bay ka sheekeynayaan ma moodaa inay meesha Soomaalida ugu egyihiin oo Soomaalidu inta badan ka sheekayso waxa dhacay kaliya aysan asbaabta waxaan keenay aysan aad ugu mashquulin waxa kaloo la wariyaa geeska Afrika anaga aan ku noolnahay qowmiyadahooda mid kamid ah inaysan luqadooda ku jirin 150 sano ka hor kelmadda la yiraahdo been taa marka waxa la yiri waligood been ma sheegin sababtoo ah ereyga beentu waa wax qofku alifay uu diyaariyay dadkana ku dhex faafiyay asagoo og inaysan xaqiiqo ahayn laakiin haddaysan dhaqankaagaba ku jirin wax la yiraahdo been qofku ma alifi karo waxaan jirin saa darteed wuxuu yaqaanaa waxaan waan garanayaa iyo waxaan ma garanayo in wax u dhaxeeya jiraan oo dadka lagu lumin karo oo lagu wareerin karo maskaxdiisu ma diyaarin karto
annaga qowmiyadda Soomaalida haddaan nahay waxaan ugu badan inta badan sheekadanada fadhi ku diriradannada meelaha aan ku doonno aan ku sheekaysano sheekadanadu waxay u badan tahay wixii la soo dhaafay waa ku yar tahay waxa soo socda waxaan inta badan ka sheekaynaa waxa soo dhaafay waxaasaa dhacay ma maqashay saasaa la yiri ma maqashay markii la soo fariistay waxaa la yiraahdaa maxaa la sheegada wax la soo dhaafay waay way nagu yartaa inaan ka doodno maxaa soo socda 5 sano soo socota maxaa dhici doona liana luqadeena iyo culture-keenan ku jirin sadartii dadka Soomaalida ee ka soo shaqeynay afka Soomaaliga ama dhaqanka Soomaaliga ama dhismaha ummadda Soomaalida sheekooyinka la yaqaan waxa kamid ah ereyga la yiraahdo qorsheyn af Soomaaliga in mar dhow lagu soo daray oo wasaaradii u horeysay oo qorsheynta oo dawladda Soomaaliyeed ay sameysay lagu soo daray waxa arintaas si public uga sheekeeyo dadka Soomaalida u sharxay madaxweynihii maamulka Soomaaliland Axmed Siilaanyo oo yiri ereyga aniga afka Soomaaliga ku soo daray markii hore waxa la rabay buu yiri in la qoro wasaaradda jaangoynta waxa la baaray ereyga jaangoynta waxay noqotay waxaad haysato sidaad u maamuli lahayd laakiin qorsheyntu waa wax aadan haysanin sidii aad u keeni lahayd luqadanada Soomaaliga marka maadaama aysan hodan ku ahayn caanna ku ahayn dadkuna wada garanaynin inay ka hadlaan waxa soo socdo waxaad arkaysaa qofka Soomaaliga inuu garanayo maanta barito bari dambe asbuuca dambe bisha dambe sanadka soo socda wixii ka dambeeya waa xisaab marka 2 sano 3 sano 4 sano 10 sano meesha carabtu aqdi tiraahdo luqadaha kale oo dhan loo yaqaano erey afka Soomaaliga 10 sano anagu 10 sano niraana sida darteed wax ka badan 2 sano ama 3 sano maskaxdiisa dhinaantiisa way nagu yartahay waa sababta dagaalada ceelasha ay u dhacayaan waa sababta dagaalada sokeeye marar badan ay u soo noqonayaan sababtoo ah lagama fakirin waxaan sidee uga baxnaa waxa laga fakiray duruufta markaas aan ku jirno sidii aan ula dhex noolaan lahayn sida darteed luqaddu asalkeeduna yahay magac waxay saameyn ku leedahay sidii aad u fakarayso waa meesha aan rabno marka inaan ka soo galno inaad Allah subhanahu wa ta'ala magaciisa taqaano waxay saameyn ku leedahay sidaad u rumaynayso waxay saameyn ku leedahay waxaad u baahan tahay waxay saameyn ku leedahay iimaankaaga waxay saameyn ku leedahay qiimaha iyo qaayaha iyo weynaanta qalbigaaga iimaanka inta uu leeg yahay ku jira sida darteed markaad maqasho Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus ereyadaas macnaha ay sameynayaan noloshaada saameynta ay ku yeelanayaan waxay ka imaanaysaa ereyadaas mugooda iyo miisaankooda sida ay qalbigaaga iyo jirkaaga iyo maskaxdaada ay u galeen haddii marka aadan garanaynin Allah subhanahu wa ta'ala magacyadiisa haddii aadan garanaynin Allah subhanahu wa ta'ala sifooyinkiisa waxa hoos kaaga dhacaya sidee baad Ilaahay u baryaysaa sidee baad Ilaahay ugu sheeganaysaa markaad u baahan tahay dambi dhaaf sidee baad Ilaahay ugu sheeganaysaa inuu ku xoojiyo markaad ugu baahan tahay inuu ku xoojiyo sidee baad Ilaahay ugu sheeganaysaa markaad u baahan tahay inuu ku irsaaqo sidee baad ugu sheeganaysaa markaad rabto Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu hodan ka dhigo sadarteed magacyadu waxay ka saameyn doonaan marka aad barato Allah subhanahu wa ta'ala magacyadiisa wanaagsan ee tira badan iyo sifooyinkiisa wanaagsan markaad barato waxay ku sahli doontaa inay naftaadu hesho sida ugu quruxda badan aad Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku baryayso Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax ku weydiisanayso casharka soo socda baana uga hadli doonaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala magacyadiisa in la barto waxa ay u tarayso qofka muslimka ah والسلام عليكم ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقة لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني وحبا كما غرسونو قلبيقو وهن هدو يشو وحي وليبا وواضح إيو واسع ماليناهي الوكيل مغا عيسو ووارسان دمانا